السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواو سكاي كوليج Department of English واحديسي إنجليزكا ما أنت هالكم وحنكو قادون دونا هذا الشيدين وسوشيدية تشاكما نينكا تشاينيسكا مليونيركا تريليونكا نينكا سلاكتا له هذا الشيدية أين سوشيدينا sababta in hadalkiisa soo qaadana waxa kamid ah erayo badan oo Ingiriis ayaan ka faa'iideyna hadalkiisu inta uu ka badnaa insha Allah ta'ala waan soo dhameystiri doonaa qaybtii hadalkiisa ahayd marka wuxuu yiri check my speech laugh what you do waa inaad jeclaato waxaad qabanayso oo qofku uu jeclaado waxa uu qabanayo waa inuu jeclaado wuxuu ku bilaabay hadalkiisa and today maantana I wanted to tell you again maantana mar labaad waxaan rabaa inaan idin sheego as entrepreneur ganacsada ahaan believe waa inaad aamintaa everyday maalin kasta is difficult inay maalin adag tahay today maanta is very difficult maanta waxay noqonaysaa maalin adag وحالدو way kugu adkaanayaan tomorrow berrina is much more difficult aadayay kugu si adkaanayaan believing aaminada the day maalinka after tomorrow berri ka dambeeya after tomorrow berri ka dambeeya maalinkan kugu adkaade maalinka ku xiga that day maalinkaasi is a very good beautiful waa maalin wanaagsan oo qurux badan but laakiin most people dadka badankoodu die tomorrow evening intaan berri fiidkii la gaadhin bay dhimanayaan muxuu ka wadaa fikir ahaan buu ka wadaa fikirka maanta kugu jira kiyaadka iyo kii maalinka qurux badnaa soo maray intaan maalinka kale fiidnimada ayna gaadhin ayuu ka baxa ama uu ka dhintaa sida loo ogsoon yahay if you don't work hard hadii aadan dadaalin buu yiri if you don't work hard hadii aadan dadaalin wadan juhdi bixin you don't see the sunshine arkimaysi cadceeda iyo dadaalka iyo fikirka arkimaysi you don't see the sunshine arkimaysid cadceeda same feeling sidoo kale waxaad dareemaysaa when you get the feeling of successful markaad hesho dareen guuleed markaad heshana waxaad dareemaysaa qaabkan oo kale aad dareemaysaa problem comes dhibaatooyinku way imanayaan buu yiri dhibaatooyinku way imanayaan right hadalkiisa ku jirtay sax so buu yiri sida daraadeed I share waxaan kula wadaagayaa some of the tips qayb kamida talooyinka I share some of the tips waxaan kula wadaagi doonaa qayb kamida talooyinka why we survive first maxaynu u badbaadaynaa bilowga bade why we sababteebaynu survive u badbaadaynaa first marka koobaad we have to believe waa inaan aaminaa in the future mustaqbalka we have to love the jobs waa inaan jeclaanaa shaqooyinkeena oo sababtu waxa la yiri ha jeclaanin shirkadda ama waxaad u shaqayso qolada ha jeclaanin shirkadda tusaalahaan aad u shaqaysaa jeclaan laakiin shaqada ha jeclow sababtu waa maxay shirkaddu goor ku nici goor laga hariyo ma taqaanid we have to love the jobs waa inaan jeclaanaa shaqooyinkeena jobs ereygaasaan isku dayna kor istaago justice of broke ayaa laga soo gaabiyaa bay yiraahdeen justice of broke in yar ayuu faqirnimada ka sareeya oo faqiirun burahayn qofku oo hanti malaba ka dhigantay justice of broke waa marka meel ka shaqeynaysa shaqaale tahay we do shaqooyinka qabana waa inaan jeclaanaa we have to love the jobs we do waa inaan jeclaanaa shaqooyinka aynu qabanayna buu yiri we have to love waa inaan jeclaanaa buu yiri our customers macaamiisheena waa inaan jeclaanaa buu yiri macaamiisheena waa inaan jeclaanaa we have to love our customers waa inaan jeclaanaa macaamiisheena so sida daraadeed if you don't have hadii aadan haysan the vision aragtida of the future mustaqbalka it is difficult way ku adkaanaysaa qofku haduuna yool iyo fikrad mustaqbal una lahayn way ku adag tahay for a team group bay ku adkaanaysaa ama koox to have ina yeeshaan a team work si wadara inay u shaqeeyaan way ku adkaanaysaa hadii ayna wax fikraba ka haysan mustaqbalka inay si wadara u shaqeystaan way ku adkaanaysaa
إن شاء الله تعالى قيبتا هردع بي إلى موقتا وحساس أو نحر وين أو كسي جرا وما موقضا إريادان كاهين مركا إن شاء الله تعالى هذا الكوان لما يستير دونا وحن اسكو دي دونا قيبها نوكاها الله لنا صور لما يستيرنا إن شاء الله تعالى سكاي كوليج مر لبات كسو دو waxaan isku dayi doonaa inaan wixii karaankayga soo gudbino wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh